injiilka sida Yooxana u qoray cutubka 15 anigu waxaan ahay geedka canabka oo runta aabahayna waa beerfalaha laan walba oo igu taal oo aan midho dhalin wuu gooyaa oo mid kasta oo midho dhasha ayuu nadiifiyaa si ay midho ka sii badan u dhasho durba waad nadiifsan tihiin hadalkaan idinkula hadlay daraadiis igu jira anna aan idinku jire sida laantu keligeed aanay midho u dhali karin haddaanay geedka canabka ku oolin sidaas oo kale idinkuna ma dhali kartaan haddaydnaan igu jirin anaa geedka canabka idinkuna waxaad tihiin laamihii kii igu jira oo anna aan ku jiro kaasaa midho badan dhala maxaa yeelay la'aantay waxba ma samayn kartaan qof own hadduusan igu jirin waxaa loo tuuraa sida laan oo kale waana qallalaa markaasaa la ururiyaa oo dabka lagu tuuraa oo la gubaa haddaad igu jirtaan oo ay erayadayduna idinku jiraan weydiista waxaad doonaysaanba waana laydin yeeli doonaa waxaa aabbahay ku ammaanaa inaad midho badan dhashaan waxaadna noqon doontaan xertayda siduu aabbuhu ii jeclaaday ayaanana idin jeclaaday jacaylkayga ku sii jira haddaad qaynuunadayda xejisaan jacaylkaygaad ku jiri doontaan sidaan qaynuunada aabbahay u xejeeyey oo aan jacaylkiisa ugu jiro waxaan waxyaalahaas idinkula hadlay in farxaddaydu idinku jirto iyo inay farxaddiinnu buuxsanto kanu waa qaynuunkayga inaad isjeclaataan sidaan idin jeclaaday ninna male jacayl kan ka weyn inuu nin naftiisa u bixiyo saaxiibbaday baad tihiin haddaad yeeshaan waxaan idinku amro mar dambe addoonmo idinku yeedhi maayo maxaa yeelay addoonku garan maayo wuxuu sayidkiisu sameeyo laakiin saaxiibbo waan idinku yeedhay maxaa yeelay waxaan aabbahay ka soo maqlay oo dhan ayaan idin ogeysiiyey idinku ima aydnaan dooran laakiinse anaa idin doortay waanan idiin diray inaad tagtaan oo midho soo dhashaan iyo in midhihiinnu sii jiraan in wax alla waxaad aabbaha magacayga ku weyddiisataan uu idin siiyo waxyaalahaas ayaan idinku amray inaad isjeclaataan dunidu hadday nin nabcaato waad garanaysaan inay hortiin inabcaatay haddaad kuwa dunida ahaan lahaydeen dunidu kuweeda way isjeclaan lahayd laakiin kuwa dunida ma ihdin waanse idinka doortay dunida taas aawadeed dunidu way idin necab tahay xasuusta hadalkaan idinku idhi addoon kama weyna sayidkiisa hadday silciyeen idinkana way idin silcin doonaan hadday hadalkayga xejiyeen kiinana way xejin doonaan laakiinse waxyaalahaas oo dhan waxay idinku samayn doonaan magacayga aawadii maxaa yeelay waxaanay garanayn kii soo diray haddaanan iman oo aanan la hadlin dembi ma ay lahaadeen laakiin hadda dembigooda marmarsiiyo uma haystaan kii neceb wuxuu kaloo necab yahay aabbahay haddaanan dhexdooda ku samayn shuqullada aan nin kale samayn dembi ma ay lahaadeen haddase aniga iyo aabbahayba wayna arkeen oo na dhabcaadeen laakiin sidaas waxay u noqotay inuu dhammaado hadalka sharcigooda ku qorani way ii nabcaadeen sabab la'aan laakiin markuu yimaado gargaaraha oo aan xagga aabbaha ka soo diri doono isagoo ah ruuxa runta oo xagga aabbaha ka soo baxa ayuu ii marag furi doonaa idinkuna waad marag furi doontaan waayo tan iyo bilowgii waad ila jirteen